marka dhaqaale ka hadlayno waxa laga yaabaa saameynta dhaqaalaha koronaha dhabtii inay gadaal ka soo baxdo waxay u bedelan karaan fursado maalgashi waa khabiir Roble Cabdi Muuse oo ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha oo barnaamijkan inagala qayb gali doono oo aanu kaga hadli doono sidii ay uga soo kaban karaan haweenka ganacsatada ahi ee dhaqaalahaan uu saameeyay xanuun dhaliyaha cusub ee coronavirus haatan barnaamijkan waxaan ku soo dhaweynaynaa Roble Cabdi Muuse oo dhaqaalayahan oo haweenkan ganacsiga ku jira guud ahaan gaar ahaan kuwa ganacsiyada yaryar haysta talooyin ka siin doona sida ugu habboon ee ganacsiyadooda ay dib ugu habeyn lahaayeen maadaama xayiraadihii coronavirus la dabciyay in kasta oo uu wali jiro Roble Cabdi Muuse wuxuu bartay culunta dhaqaalaha stuudiyaha BBC Media Action ee Hargeysa ayuu marti ku yahay khabiir haddii aad dhageysatay sheekada labadaasi haweenka ah mid ahaan keligeed ganacsi ku kooban ayay ku jirtay waxaanu ku xidhmay ganacsigaasi xanibaadihii koronuhu keenay mid kale waxay tilmaantay inay ku badbaaday iskaashato ay ka tirsanayd oo istaageertay maxaa kaaga baxay sheekooyinka labada haweenka ah runtii ganacsiga yaryar oo intooda badan 75% lagu qiyaaso dumar koronuhu saameyn weyn buu ku yeeshay oo laba dhinac guud ahaan u kala jabaysa dhinac waa qoyska dhinac waa ganacsiga oo ganacsigan yaryar ee dumarku ay ka ganacsadaan inta badan waxay ka taageeraan nolol maalmeedka qoyska oo si looga saari karo nolol maalmeedka qoysku ma jirto xitaa haddaan ganacsiga saameyn ka dhicin nolosha qoysku saameyn ka dhacdo waxay saameyn toos ku yeelataa ganacsigooda marka ganacsigii baa dee laba kala jabaya saynu imikaba samsam iyo sacdiyo kala aragno dumar waa dumarka ka ganacsada alaabaha ka iskaga gudubta xuduudaha alaabaha u baahan raridda ee istaagay iyo meelaha la isugu yimaado sida dugsiyada kuwaasoo dee wada istaagay dumarna waa dumarka ka ganacsada ganacsiyada nooca ka duwan ee saameynta kale ee koronuhu ay soo gaadhay ee aan wada istaagin marka runtii iyagoo dumarku duruufo badan la nool marka ay ganacsanayaan oo ganacsigoodu u badan yahay ganacsi dadban oo aan diiwaan gashanayn oo aan tirakoob lagu haynin oo dumarkii ka baxay ganacsiga ama culays soo food saaray aanay sugnayn xogtoodii oo iyagii aanay lahayn sharciyado ay ku raadsadaan deyn sharciyado ay kaalmo ku doontaan badidoodu oo culayskaasi haysto ayaa runtii koronuhu noqday culays ku soo kordhay ama badeecadahoogii ay ka ganacsanayeen joojiyay oo sida sacdiyo ganacsiga oo dhan ka xidhmay amaba sida samsam maadaama koronuhu uu dhaqaalihii ummadda hoos u dhac weyn ku wada keenay samsam lafteeda iyo ganacsiyada lamid ah waxa yaraaday iibkii wax laga iibsanayay Roblow dadkeena dhageysanaya waxa laga yaabaa inay naga filayaan oo waliba haweenka inay dhageysanaya ganacsiga ku jira ee sacdiyo iyo lamida iyo samsam oo kale khabiiradu waxa noo sheegaan soo kabasho aan u sameyn karna dhibaatada kadib haddii aynu ka hadlayno markaas soo kabashadii laba dhinac bay noqonayo mid iyaga laftooda in lagu kaalmeeyo u baahan oo tala ay tahay deyn dawladaha iyo cidii ka mas'uula loo jeedi iyo talada dee dumarka laftooda loo jeedinayo marka inagoo duruufteena ku xisaabtamayna haddaynu ku horeyna tayaga aynu jeedinayno waayo taasaa ka degdeg badan xagga kale waxa muhiim horta in iyaga laftooda ay dee iyagoo tan maanta wax ka baranaya qolooyinkii iskaashatooyinka lahaana ay toodii sii xoojistaan oo ay iskaashatadooda ballaadhiyaan oo dee koronuhu baraya iyaga inay iman karaan mushkilado ka riiq dheer ama ka saameyn dheer maalin bil laba marka dhaqaale ka hadlayno waxa laga yaabaa saameynta dhaqaalaha koronaha dhabtii inay gadaal ka soo baxdo waxay u bedelan karaan fursado maalgashi Soomaalidu dee waxay oran jireen dumarku inala garanayaan khayr wax kuma yeelan sharu toogahay dhaqaalaha marka laga hadlayo ama ganacsigana waa dee labada waa la iska rabwadaa oo dee khatarta iyo macaash way wada socdaan marka xitaa haddii arrimo saameyn dhaqaalo weyn aanay imanin khasaare shakhsiyan ay iman karaan qodobka labaad inuu ku boorinayna waxa weeye inay bal inta karaankood balin isku dayaan inay kobciyaan xirfadooda ganacsi iyo xirfadda maamul ee ganacsi oo bay ogaadaan xitaa alaabadan yaryar ka ganacsanayaan teebaa macaashka badani ku jira teebaan macaash badan lahayn alaabtee wada xabuubtee baradhadu say wada socdaan baradhadu haddaanay macaash badan kuu lahayn laakiin xabuubtoo macaash badan kuula ay kaa gado waa inaad dee baradhaduna aad garab wadaa xabuubtii ku gadaa marka iyaga laftooda bal haddii xitaa ay waayaan cid siisa inay isku dayaan xitaa hadday jeebkooda ka bixin karaan inay baldaraaseeyaan ay fahmaan ganacsigan yar ay ka ganacsanayaan siduu isku wado iyo siduu macaashka u badiyo oo ay bartaanta khasaaraha ku haysa meesha ka saaraan marka si ay u soo kabtaan iskaashigoodana xoojiyaan hana u dhug yeeshaan ganacsigan ay ka shaqaynayaanoo ilinjug baa dhacday iyaga laftoodu soo jeed ka badan iyo u fiirsi ka badan intii hore ha sameeyaan ugu dambeyntii soo kabashada ma lagu dari karaa maadaama ay cashuur bixiyaal yihiin oo dadka ugu badan cashuur laga qaada haweenka yihiin ganacsiga ku jira la yiraahdo sida sheegay 75 suuqyada ku ganacsada xukuumadaha iyo maamulada cashuuraha ka qaada xaq ma ugu leeyihiin inay kabashada ka qayb qaataan isweydiinba male runtii waa in dadkani maadaama ay cashuur bixiyaal yihiin maadaama ay dad muwaadiniin yihiin marka intaba laga yimaado maadaama ay dad dan yaro oo duruufi ay soo saartay ay yihiin xaq uma laho kaliya ee waxa waajib ku ah xukuumadaha ay siiyaan ee ka ururiya cashuurta hadday ka ururiyaan iyo haddaanay ka ururinba waa in loo dhug yeeshaa inta ka sako
ganacsiyada waaweyn iyo kuwa dhexe waa inay ogaadaan ganacsiga ay ku nool yihiin inuu yahay kan yar. gabadhan iibinaysa kiilooga bariiska ayaa gabadha socodsiisa markabka bariiska ummadeena wuxuu gaadhaa kiilo 5 kiilo 10 kiilo. marka ganacsatada waaweyn laftoodu waa inay u dhug yeeshaan oo iyagu hadday dareemeen inay ama rarkii ku qaaliyoobeen saas ku qaaliyoobeen inaanay iyaga leh xamil ka ballaaran ka ganacsatada yaryare. waxaan kula talinayaa oo islaamnimada iyo Soomaalinimadu sheegaysaa inay xaggooda u badiyaan culayska dadkan masaakiinta loo dhug lahaado. cabdilaahi waa uu mahadsan yahay khabiirka barnaamijka ee toddobaadkan Rooble Cabdi Muuse aan khabiirka ku laabto si uu jawaab u siiyo dhageystayaasha Facebook su'aalaha inagu soo weydiiyay. ku soo dhawow dhaqaalayahan Rooble Cabdi Muuse mar kale. su'aashan waxaana soo weydiiyay Cabdinaasir Sheekh Maxamuud Ciire wuxuu joogaa Muqdisho. Cabdinaasir waxa uu leeyahay haweenka ganacsiga ku jira ee ganacsigooda ku xirmay xayiraadda coronavirus door intee leeg ayaa looga baahan yahay dawladaha ay ku hoos nool yihiin si dib ay ugu bilaabaan ganacsigoodii meesha ka baxay. taxriiradaha waxa loo sameeyay nolosha dadka la badbaadiyo. go'aanka marka la qaadanayo waxa muhiim ahayd in la eego dhaqaalahan go'aankani uu saameynaya oo tiyo ay diiwaan gashan yihiin tirada ganacsiyada uu xiri doono go'aankani oo meel la saaray nolol maalmeedkeedii in la fuliyaabay oo marka horeba in go'aanka xagga hore laga abaabulaabay haddaan taasi dhicin waxa yidna su'aal adag ba dadkan intii uu xidhnaa ama ganacsigu xayirnaa maxay ku noolaayeen. haddii su'aashan aanu yimaado runtii waxa muuqanaysa dadkani maadaama ay dad jeeb yar ahaayeen intii yareedii ay celcelin jireen inay cuneen ama ka soo baxeen muddadii xayiraadu ay saaratay. marka waxa muhiim ah ama dawladaha waajib ku ah in dadkaasi lagala shaqeeyo sidii wixii deynaya ay galeen looga bixin lahaa ganacsigooda wixii yaraaye ay dib ugu bilaabi lahaayeenna loogala howlgelin lahaa ama loo caawin lahaa ama deeq looga keeno ama mucaawinad looga doono ama dawladuhu waa ka bixiyaan miisaaniyadahooda iyo dakhligooda. laakiin dadkaasi culaysna ku dhacay waxa ay ku noolaayeen in la isweydiiyana waa muhiim. marka horena haydin laga taxadiro runtii imikana waa in laga fikiraa sidii ay ganacsigoodii oo aan culays dheeraadi saarnayn ay dib ugu furan lahaayeen. su'aashan kalena waxaana soo weydiiyay Maxamed Shaafi Sheekh Xasan isagu wuxuu joogaa Cabud Waaq. waxa uu leeyahay maxaa xalku ku jira si ay haweenka ganacsatada uga soo kabtaan saamaynta hoos u dhaca dhaqaale ee uu ku yeeshay caabuqa COVID-19. waxa ku jira su'aal guud ballaaran. waxa jira duruufo ay caabuqa hortiisa la noolaayeen ganacsatada yaryar oo u baahnaa in la xalliyo waxna laga qabto meeshan laga saaro iyo kuwii uu sii kordhiyay xaaladda corona. caqabadaha ugu waaweyn ee muhiimka ee loo baahan yahay in wax laga qabto waxa weeye waa in dardargelin lagu sameeyo ganacsiga si ay runtii uga kabtaan intii dhaqdhaqaaqa ganacsiga ka istaagtay muddada amaba hoos kaga dhintay. waa in la abuuraa fursado ay ku helaan deyn ama deeq ay ganacsigoodii ku sii kobciyaan ku maalgeliyaan. waa in runtii laga fikiraa sidii loo kobcin lahaa xirfadooda ganacsi iyaga laftooduna ay si gaar ah ugu dhug yeeshaan ganacsiyada ay maamulaan si ay uga soo kabtaan oo uga soo kabasho u sameeyaan. waxa yadna muhiim ah marnaba laga maarmaynin in laga fikiro sidii loo heli lahaa xog sugan oo ku waajahan ganacsiyadooda oo iyaguna ay ku go'aan qaataan ciddii kale caawinaysa iyo dawladii ciddii wax la qabanaysaabana ay ku salayso go'aanadooda. marka runtii qodobadaas ayay ila tahay inay muhiim tahay si looga taageero ka soo kabashada. safiya aad baad mahadsantihiin adiga dhaqaalayahanka iyo dhageystayaashuba ee toddobaadka dambana sidan oo kale insha Allah waxa aynu khabiirka u soo bandhigi doonaa weydiimaha dhageystayaasha. barnaamijka muujadaha baraaruga ay dhageystayaashu la socdaan oo BBC Media Action diyaarisay laanta afka Soomaaliga ee idaacadda BBC-na waa ay ka dhageysanayaan.